firno adverbs haddaba adverbs maxay yihiin Soomaali markaa ku micneyno aniga waxaan iri ficil sifeeyo waay adverbs waxay wax warbixin fara badan ama warbixin dheeraada waxay ka bixiyaan ficilka sidee uga bixiyaan warbixin dheeraada waxay noo sheegayaan how sida uu dhacay ficilka when goorta uu dhacay ficilka where xaguu ka dhacay ficilka goobta ama meesha uu ka dhacay ficilka iyo waxay kale noo sheegayaan how often oo imise jeer ayaa ficilkaas la sameeyaa wax joogto ah mise waa wax ficil joogto miya oo maalin walba ama si regular loo sameeyaa mise waa ficil hal mar dhacayo intaba ayay warbixin ku saabsan ficilka naga siiyaan they describe more about the verb allaha so adverbs marka uu kala baxbaxaa aad buu u kala baxbaxaa anaga si guud ah hadda u fiirineena example kan fiirineena waxay waaye waa si general si guud ah rabnaa inaan u fiirino wixii detail ah adiga marka intaan fahamtid adiga raadso baro isku darso xisaabahaada alright so inta waxaa ku qoray 5 eray 1 2 3 4 5 inta kalena way la mid yihiin ama isku group waaye ama isleeyihiin oo qalinka guduudan aan ku qoray haddaba erayga koowaad waxaa waaye quickly macna ahaantiisa markaan Soomaali ku sheegno waa degdegan waa qayb ka mid ah qaybaha oo kala duwan oo adverbka u kala baxo ama ficil sifeeyaha ah waay ficilkan si degdeg ayaa loo sameeyay waxaana lagu dhahaa English adverb of manner amtaas ka soo gaabiyay adverb of manner marka waxay ka kooban qoladan wayna badan yihiin quickly ayaa ka mid ah sida caadigaana ayaga waxay ku dhamaadaan ly adverbs of manner badankooda waxay ku dhamaadaan ly ayaa ugu dambayso quickly si degdeg ah okay slowly si tartiib ah carefully si taxadar leh well tanada ly ma laha laakiin way ku jirtaa waxaa soo kale ku jirto fast so intaas waxay noo sheegayaan ficilkan sida uu u dhacay ama loo sameeyay sidee bay ahayd ma si degdeg bay ahayd ma si tartiib bay ahayd ma si taxadar leh ahayd ma si wanaagsan bay ahayd ficilka sida uu dhacay oo dhanba intaas lagu sheegayaa alright tanna today haddaad adiga caadi u taqaanay waxay ka mid tahay hadda